بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. maanta oo jimco ah oo ay bishu tahay 5tii December anagoo joogno magaalada Muqdisho meesha ka deganahay waxaan rabaa laba arrin ba inaan cadeeyo magaaladan cadawga aan rabin inay kobcdo ama ay dhisanto dacaayada beenhay afufahayaan waxyaabaha ay soo qoreen website-yada ee gobolka in uu la wareegayo dadka hantidooda wax ka jira male raad iyo asal midna ma laha waxaan ka xunnahay maaragtay fanaanka artistaha Amiin Caamir in uu maaragtay dabinka ku dhacay waxaa fiican in dadku ay sharafkooda dhowrtaan iyo karaamadooda ay dhowrtaan haddii kale hadday noqoto fadlan ugu shubo oo dadka politically motivated waxay rabaan loo qoro ama waxay noqonaysaa fadlan ugu shubo ay noqonaysaa meelihii miidiyaha qaarkood oo sidaas ku shaqaysanaya ay ku dhamaadeen ayuu ku dhamaanayaan marka waxaa la rabaa qofka artistaha inuu artiga run ka sheego inuu been ka sheego ama qof kasta maaragtay wixii loo dhiibto inuu iska soo qoro maaha annagu gobolka haddaan nahay warqadda aan qornay waxa ku qoran qorayna waa loo sheegay haddana waa la faafinayaa waxa ku qoran waxaa weeye azaan hoteelka Jubba Shabeelle dhismaha ku xiga ee azaan ilaa iyo sulfiqaar dhismooyinkaas waxay ku yaalaan wadnihii magaalada ku yaalaan marka waxaa loo baahay dadkii lahaa inay dhistaan adduunkana waxaa waaye municipality-ga jidadka halbowlayaasha magaalada u ah lama ogola guryo iska burbursan waad ogtiin safaaradaheennii wadamada ku yaalay oo dhan waxaa lagu qabsaday waxay ama gada ama dhisa ama municipality-ga ayaa la wareegaysa annagu marka waxaan leenahay dadkii dhista oo inay dhistaan ayaan soo dhaweynaynaa waxaan la wareegayna ma jirto laakiin hadday dhisi waayaan ama ayna awoodooda ahayn dee weligeed sidaas uma burbursanaanayso marka waxaan rabnaa inaan xal u helno xalka marka muxuu noqon karaa xalka wuxuu noqon karayaa in la naadiyo oo ay lacag qaataan haddayna rabin in la naadiyo ay lacag qaataan waxaa weeye waxay samaynahayaan waxay la heshiinayaan shirkado meeshaas halbowlo wey shirkaday la heshiinahayaan oo ay muddo liisa kula heshiinayaan kira ah ayakii shirkadihii inay dhisaan ayakuna ay ku shaqaystaan magaaladiina saasay ku dhismaysaa isaguna saasay u dhis qofka iska lahaana saas haddana ku jirtaa intay u dhisanto hadhow muddo dabadeed lagu wareejiyo lacagna laga siiyo inta ay socoto kiraduna ay u lacag ka qaato sidaasaan asagiina nolol ugu jirta hadda asagiina qabri weeye meeshii waxba kama helahayo wax kama soo gelahayaan magaaladiina wuu fool xumaynahayaa weligeedna saasay ahaanaysaa ha awood uma laha inuu dhiso marka annagu xal baan u raadinayna war sidaan tala ma noqonayso abadiyan ma noqon karayso dhulkaan inuu burbursanaado wadnaha magaaladii laakiin dhisa haddaadnaan awood u lahayna imaada marka xal baan idinla raadinaynaa inaad xal idinla helna ayaan isku dayaynaa arrintu waa sidaas haddana waxay ku koobnayd azaan ka bilow ilaa iyo sulfiqaar dadka magaalada yaqaana wey waa jiri karaan haddana magaalada dhexdeeda in loo yimaado meeshii wadna loo arko in sidaas la dhaho marka beenta la abuuray oo gobolkaa dhul la wareegaya annaku lama wareegayna danna kama lihin aan la wareegno laakiin annaka ayaka waxaa noodana in magaalada la qurxiyo oo magaalada quruxdeeda laga shaqeeyo magaalada quruxdeeda si looga shaqeyn karana waa magaaladii inay dhisanto wey dowladda naftigeeda waxaan leenahay guryaha dowladda ay leedahay in la dhiso oo dowladdu ay dhisto wasaaradahooda inay dhisaan sidaasaan wasaaradaha dhanna u canaanay oon leenahay dhisa maaragtay guryaha ay dowladda leedahay ama wasaaraduhu leeyihiin in la dhiso marka dadka xumaanta faafinahaya ee raba magaalada Muqdisho inay qabriyo ahaato iyo website-yada beenta abuurahaya waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed annagu ninka ugu danqasho badan baan ahay qof maskiin ah ama dadka tabarta yar in wuxuuda la taabto ninka ku garab taagan baan in xoolahooda iyo xaqooda u soo noqdaan marka inay soo masawiraan Amiir Caamir iyo waxaan jirin oo qolo oo siyaasiyan u dan leh oo cadow ku ah magaaladan iyo hawsha aan qabanayna diidan inay ku shubtaan waa nasiib darro marka waxaan leenahay Amiir Caamir sharafkaaga iyo mawhibadaada ha ku dheelin ha noqonin qof wax lagu shubto hubi waxa aad samaynaysid hubi markaad hubisid haddaan xumaan samayna soo qor laakiin markaad hubisid soo qor waxaadnan hubin marka ha soo qorin haddii laakiin lagu dhiibanayo shaki kuma jiro inaad ku dhammaanaysid meeshay ku dhammaadeen website-yadii iyo kuwa laaluushka ka qaadi jiray oo ku shaqaysan jiray inay laaluush ka qaataanoo ama lagu shubto kuwii ku shaqaysan jiray meelahay ku dhammaadeen ayaad ku dhammaanaysaa waa mahadsantii